Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xaqiijinaya dadaallada ku aadan ka hortagga cudurka coronavirus ayaa cafis waxa uu madaxweynaha u fidiyay 148 maxbuus oo ku xukmanaa dambiyo fudud. Madaxweynaha ayaa soo saaray xeerka cafinta xukmanayaasha kadib warbixin ku saabsan xaaladda maxaabiista dalka oo uu u soo gudbiyay xeeraryaha guud ee qaranka, Abuukar Suleymaan Maxamuud. sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray taliska asluubta Soomaaliya oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka ee dalka Soomaaliya in ay dadaallo mug weyn geliyaan badqabka caafimaadka ee maxaabiista ku jira xabsiyada dalka si looga hortago halista caabuqa iyo weliba caafimaadka oo ay u nugul yihiin. si waafaqsan qodobka 9aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu madaxweynuhu xukmanayaasha u fidiyay cafis madaxweyne iyadoo la xaqiijiyay in dhamaantood aysan u xukmanayn falal dambiyo culculus. Cafiskani oo aan saameyn ku yeelan doonin xuquuqda madaniga ah ayaa waxaa fulin doona xafiiska xeeraryaha guud ee qaranka iyadoo loo raacayo awaamiirta ku xusan xeerka.